taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo howlo shaqo ku jooga magaalada Gaalkacyo ayaa xilli uu ka qayb galay xaflad ka dhacday Gaalkacyo waxa uu ka hadlay ammaanka gobolka Mudug. Jenaraal Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif waxa uu ugu baaqay dhammaan shacabka gobolka Mudug gaar ahaan dhinacyada Puntland iyo Galmudug inay xoojiyaan nabadda lana shaqeeyaan laamaha ammaanka ee gobolka. halkan loo magacaabay in aan iraado walaal hambalyo xilka la inay magacaabay waa mudantihiin waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay la garab galo adinkana gudataan si sharaf leh deelaan waxaan rabaa inaan kala dardaarmo inaan u wada istaagteen midnimadiina waxaan rabaa inaan kala dardaarmo inaad amniga iyo cid kasta shaqaynaysa iyo ciidanka iyo dhammaantiin adinkoo labada degmaba ah labada degmo marka leeyahay waxaan ka wada Galmudug iyo Puntland iskaashataan isku mid baatihiin dariskaagu haduusan ku seexan nabad adigana nabad ku seexan maysid. Axmed Qaliib Keedi Somali Cable Gaalkacyo.